ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo howlgal ay ka fuliyeen degmada Wadajir gaar ahaan Jidca Kaaro ayaa inta ay howlgalka ku jireen waxa uu iskoorimaad dhaxmaray ciidamada booliiska iyo kooxo burcada oo ku labisnaa dareeska ciidamada iyadoo ciidanka amniga ay ku guuleysteen in ay soo qabtaan qaar ka mid ah kooxihii hubeysnaa halka mid ka midana ay toogteen kadib markii uu diiday in uu isdhiibo. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax ayaa kormeer ku tagay goobta uu howlgalkaasi ka dhacay isagoo warbixino ka dhageystay saraakiishii hogaaminaysay howlgalkaasi lagu soo qabtay kooxo burcada oo hubeysnaa. sidoo kale howlgalkaasi kadib ayaa dowladda hoose xamar waxa ay burburiyeen goobo ganacsi oo si sharci darro ah looga dhisay wadada Kaaro ee degmada Wadajir oo maanta howlgalka laga fuliyay. taliyaha qaybta galbeed ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed Qaasim Axmed Rooble ayaa warbaahinta qaranka u sharaxay howlgalkani. askarta ayaa maanta soo martay abaar 6 saac mar laala markii ay soo mareen roonday u soo mareen roondadii mar laala markii ay arkeen ayay waxay is yiraahdeen waa adinkay idin socdaan xabaday ku fureen xabadii ay ku fureen askari baa ku dhintay ayagiina waa la dagaalamay askarta booliisku way la dagaalameen mar laala markii ay la dagaalameen halna waa ay ka dileen 3 dhaawacana isbitaalka ay ku katiinadaysan yihiin oo lagu hayaa. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax ayaa ciidamada amniga ku amaanay howlgallada joogtada ah oo ay ka wadaan caasimadda kaas oo qayb ka ah dardargelinta xasiloonida caasimadda. waxaan aad iyo aad u amaanayaa ciidankii howlgalkan fuliyay annaga maamulka gobolka Banaadir iyo qaybta guud ee booliska gobolkaba waxaan bilownay inaan xaafadaha iyo goob walba oo aan ku tuhmayno inuu culays amni darro ka jiro inaan ugu tagno shacabka meel walba ama degmo walba oo gobolka Banaadir ka tirsanna waxaa hadda ka socda howlgallo iyo roondo. goobtaan waxay ahayd goob markii si kale loo dhigo ka caagan ciidanka oo ma jirin wadadan iyo xaafadanba ciidan boolis ah ama soo gali kara sida hadda aad aragtaana ciidankiyo socdo oo aan wax dhibaato wadin bay xabada ku bilaabeen. marka insha Allah waxaan rajeynayaa in wadadan dib loo furo oo la nadiifiyo oo hadda sida arkaysaan waxaan ku bilownay inaan dib u jijibino oo goobihii sharci darrada ah ee laga dhisay halkan. waxaan rajeynayaa inaan joogteyn doono hadduu alla idmo goob walba oo aan ku tuhmayno in darro ka jirtana aan tagi doono. ciidanka booliskana waa ku amaanayaa shaqada fiican ay qabteen magaaladan. waxaan rabnaa in xasiloonideedii iyo amnigeedii dib gacanta ay ugu dhigaan ciidanka booliska Soomaaliya. waana mahadsantihiin. Nuur Saciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.